Caynaashe Cabdiraxmaan oo ka mid ah qurbajooga ka shaqeeya xoreynta deegaanada Sool Sanaag Cayn oo aan khadka telefoonka kula xiriirnay ayaanu weydiinay shirar dhawaanahan u socday oo lagu dhisay jabhadda Sool Sanaag Cayn halka uu marayo. waa runta beryahanba waxa socday shirar qurbajoogta ah waxa laga tashanayay sidii dhulka looga xoreyn lahaa dadkan jooga looga saari lahaa arrintaasina meelo badan bay soo martay laakiin hadda meel wanaagsan bay aga dhigatay guddi 45 qof la magacaabay oo raga guddiga waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeen xoghaye iyo 3 laamood oo kale oo ah dhaqaalaha difaaca iyo arrimaha bulshada si wanaagsan baa dhismahaasi u sameysmay waxa la gelayaa talooyin hadeer hadii Ilaahay ka raali noqdo sidii looga saari lahaa ummadan dhulka u dowladeynaysa isbeen fariimaysa sidii looga saari lahaa qorshuhu sida weeye wax hadalena maaha kaliya waa gacan ka hadal weeye hadii Ilaahay ka raali noqdo meelaha wanaagsan way maraysaa hadeer Maxamedow. Caynaashe horey waxaa loo dhisay jabhaddii Sool Sanaag Cayn iyo waliba maamulkii Khaatumo labaduba waxay ku dambeeyeen inay Soomaaliland isu dhiibaan. Jabhaddan maxay kaga duwan tahay jabhadihii hore? Maxamedow farqigu waqtiga weeye arintani dadkii way soo kartay waxana waay aragnimo laga qaatay fashilaadihii hore ee dhacay dadka meelahan hoggaanka u qaban doona wax way arintu waa jabhad weey horta waa xoreyn marka dadka hoggaanka u qaban doonaan qorshuhu wuxuu ahaa inay dad shariban noqdaan si cadaan oo toos dad cid walba looma dhiibi karo laakiin waxa weeye hadeer dad wada socdo oo taladooda leh oo committed ku ah in guluf dagaal laga saaro dadka dhulka haysta ummadii way arintani soo kartay ummadii baa iska soo xulay dad arintan committed ku ah rag committed ku ah oo diyaar oo inay ku dagaalamaan qurbaha iyo dalkaba way joogan waxana lagu tala galay arintani Ilaahay tiisay noqonay inaanay fashilmin in cilad dambe aanay soo bixin in dhulkan lagu dagaalamo oo go'aan la wada qaatay weey oo cid waliba raali ka tahay dibna aan looga soo noqon ilaa hadii Ilaahay ka raali noqdana ilaa calanka buluuga in Hargeysa la geeyo way qorsho insha Allah taala dhulka jabhaddan ay ka shaqeynaysaa waa dhulka dadkan u dhasheen maamulka Puntland waa loo sheegay dhulka iyagan xoreysanayna dhulkeena markaan ka saaro cadawgana inagu wada hadal baynu gali doonaa wada shaqeynteenu sida ay noqon doonto nooca ay noqon doonto laakiin dhulka dadkana iskale dadkana u dhashay waxaana diyaar u yihiin inay u dhintaan marka maamulka Puntland level walba waa lagu la hadlay nisimada waa la ogeysiiyay arrintan way og yihiin raalina way ka yihiin marka waxa weeye waxa lagu tala galay dhulkan in lagu dagaalamo maamulka Puntland arrintan waa loo sheegay laakiin mulkiilayaasha arrintan waa dadka dhulka u dhashay weey inay dhulkooda ku dhintaan dhulkan wuxuu gacanta ka baxay intii maamulka Puntland laga tirsanaa haddana waxa lagu tala galay markii maamulkii u dhaqaaqay way in dadkii dhulka u dhashay dhulka u dhintaan arrintuna intaa weey waana loo sheegay waxana laga rajeynayaa inay ixtiraami doonaan arinta waa laga baaraan degay waxa lagu tala galay dadkan in wada hadal la yeesho ummadda laga dhaadhiciyo waxaanay dhulkooda yihiin qof shisheeye oo meel kale ka yimi gebilay wax ka shisheeye inaanu dhulkooda ku xukumin irsaaqada Ilaahay baa haya laakiin irsaaqada aad uga badan waxaad ku helaysaan si gobanimo maamul goboleedaad idinku leedihiin dhulkiina xora waxa doontaan idinkoo xildhibaanka aad meel kale u dooranaysaan oo halka la idinku keeno dawladda federaalka si buuxda halka idinku timaado maamul goboleed iyo dad idinkayda ka dhul yar oo idinka irsaaq yar inaad wax ka sugtaan qalad weey marka fikradan loo socono waxa weey inay iyagu istaagaan inay wax noqdaan cadawgana dhulkooda inay ka saaraan waxaana ay hantidoodii tahay lacagtan la leeyahay waxbaan idin siinayna ay tahay lacagta cashuurta la saanood laga qaado iyo lacagaha
adduunka laga dhaadhiciyo dhulkaasaan adeeg ugu samaynaynaa lacagaha inay tahay taa iyo 10 laabkeed iyo kheyraadka dhulkooda inay iyagu maamuli doonaan go-aankiisana qaadan doonaan cid kalena aanay u daba fadhiisan doonin dadkan u halgamayaana ay dadkooda yihiin insha allah rajo badanna waa kalena haddii ilaahay ka raali noqdo. ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaan bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn? bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan ku leeyahay waxaad leedihiin dhul ballaaran, waxaad leedihiin taariikh aan cid kale lahayn, waxaad leedihiin rag iyo dumar u qalma inay iyagu isxukumaan danahooda qabsadaan dowladnimada Soomaaliya si buuxda uga qayb qaataan. waxaad leedihiin choice aad meel alla meesha doontaan dooran kartaan, laakiin marnaba yaa laydinku qancin Soomaaliya la kala goynayaa waa xaaraan weeye, wax la ogolaan karo ma aha, raalli idinkuna kama tihidin dee meelay idin geyn karaan ummadaasi ma jirto. beenta sheegaya iyagiibaa ishaya waxay haystaan ma jiro. marka waa inaad macali iyaga waxaa idinka saaran xil inaad Soomaalinimada kusoo dabaashaan, yani dhicin kii la socdana ku daya hadal soo hanuuniya, kii lagu kari waayana ama dhulka ka masaafuriye ama qaarajiye waa inuu dhulka u ka tagaa. laakiin dhulkan waa dhul Soomaaliyeed, wax la kala goynayaa ma jirto, iyagana ha ka ogolaanina inay go-aan. kheyr badanna waan idiin rajaynayaa.